ديري صعقة من عالم مفيق من بعد عليه أنا وافق أنت معاه marka hore inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay uu naxariista marka hore tirada ku dhimatay in ka badan tirada dhimatayna way ku dhaawacantay iyaguna waxaan u rajeynaa inuu ilaahay caafimaad degdeg ah siiyo musiibo ayaa ka dhacday deegaanka ceelasha biyaha gaar ahaan suuqa Bakaara labo halka loo yaqaano maxaa ka dhacay marka waxa rabaa muuqaalkan aad u jeedaan suuqi qayb ka tirsan ayaa hal mar korkooda waxa soo maray wax aan loo jeedin dabeel aan wadanin xajmigoodana aad u culus yahay hada roob ma da'ayo duufaan ma socoto dabeelana ma imaanin laakiin hal mar suuqi oo dhan ayaa waxa dhax maray ama kor maray wax xajmigooda iyo culeyskooda dadku ay garan la'ayn ilaa hadda markaas jiingadihi qayb ka tirsan hal mar ay wada daateen hooyo ayaa ku dhimatay silamida hooyooyin kale ayaa ku dhaawacmay waxa kale oo dhibaato ay gaartay nin markaa oday ahaa oo ka soo baxay masaajidka isaguna waa uu ku dhintay dadku waxay isweydiinayaan marka waa maxay musiibadan dhacday ee aan roobka iyo dabash iyo wax dhan aan wadanin hadana wax hal mar kor soo maray ee dadku dhibaatada u geystay suuqii oo dhan dhulka dhigay xitaa fiilooyinkii tabeelayaasha ee shirkadaha oo ay kamid tahay beeko halka ay ku go'een waxaan rabaa marka intaan gudaha sii galin inaan ku sharaxo marka 3 daqiiqo waxyaabaha dadku ay u sababeyn karaan musiibada rabaaniga ee ku dhacday suuqa Bakaara labo kaas oo ku yaala deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho marka hore waxaan rabaa inaad u duceysaan tirada dhimatay kuwa dhaawacan Ilaahay inuu u bogdayo oo caafimaad degdeg ah helaan muuqaalkan haddii aad qabatid waa mid cimri qaadasho ah oo ay dadku wax badan ka baran karaan qabo la wadaag saaxiibadaada qaybta hoose aragtidaada la wadaag waxa keeni karo musiibadan haddii aad sheer gareysidna waxba ka ma dhibi doono waxaan rajeynaa inaan marka hore like saartid si muuqaalkeena like-taas ay uga caawiso in meelo badan ay gaarto maalmo ka hor marka waxaa jirtay hooyooyin danyar ah oo aad u caabanayo ooynayo laakiin maxaa sabab oohintooda suuqana maanta maxaa ku dhacay hooyooyinkaas maalmo waxaa jiray maamulka deegaanka ceelasha biyaha suuqa uu dumiyay dabadeed cabiro cusub la sameynayay halka marka maxaa ka dhacay qofka uu ka lacag badan yahay qofka isagu isku malay inuu ka qabiil weyn yahay ayuu maamulka hoosta ka galay kuwa lacag ayay sheegteen kuwana garasho in adeernimo iyo qabiil ayay sheegteen halkaas marka yaa lagu dulmiyay marka maxaana dhacay waxaa dhacday hooyooyin danyara aabayaal danyara hooyooyin ilmo agoomana ka korsanayo qaybihii iyagu ay ku ganacsan jireen in laga baaday goobihii afka hore ee ganacsiga ugu fiicnaa qof kasta oo jooga oo danyara ama dadku waxay markaa u yaqaanaan 4.5 ka soo jeeda oo kale in la liido dabadeedna dadka markaa sheeganaya tunka weyn silamida dadka lacagta sheeganayo in lambarada hor la siiyay qaar in adeer ayaa lagu siiyay maamulka ay u dhawaayeen kuwana waxa lagu siiyay lacagtooda ogeysiis waxaa imaanaya isbitaalka takhasusiga ah ee Muqdisho taariikhdu markay tahay 15 bisha Janwari 2024 dhaqaatiir Hindi ah oo ah kuwii Hindiya loo aadi jiray waxaana kamid ah dhaqaatiirta imaanaysa Dr. Sifaram oo ah dhakhtar ku takhasusay qalliimada guud iyo qalliimada burooyinka kansarka sidoo kale waxaa imaanaya Dr. Arul Barkash oo ku takhasusay daaweynta gaaska dheefshiidka iyo kaamrooyinka caloosha haddaba ha ka dibdhicin fursadan dahabiga ah ee dalka kugu timi tirada la qaabilayo oo xadidan aawadeed soo booqo isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada Yaaqshiid gaar ahaan xaafadda Tawfiiq miisaanka dhuxusha ama wixii faahfaahin inta dheer nagala soo xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda maanta maxaa dhacay marka wax fiican ma dhicin suuqa oo dhan gabi ahaan waxa soo kormaray
waxaan loo jeedin xajmigooda culeyskoodana hal mar suuqii oo dhan dhulka dhigay hadda waa musiibo rabbaani ah marka hore ilaahay ha u naxariisto oday Soomaaliyeed ayaa halkan ku dhintay hooyo kale ayaa la sheegay in xaalad halis ku jirto mid kale way dhimatay tiro kale 4 ilaa 5 waxa la sheegay in qaarkood jiingadihii ay jarjareen dhaawacyo halis ay u geysteen laguma diganayo dadka dhibaatadu ay gaartay laakiin cadaalad la'aanta markasta meesha ay ka dhacdo musiibo noocan oo kale ah ayaa ka dhacdo waxaan arkay maalin ka hor hooyo Soomaaliyeed oo ooynayso oo dhahayso hadii maanta aad noo sheegateen awood ilaahay ayaa idinku deynay hadda wax ugu xun ee lagu dhahan wax kale maaha marka lagu dhaho cadaalad xagga Allah ayaan ka sugi doonaa ilaahan kuugu deey qofka markuu sidaa dhaho waa quus waa awood kale oo san dunida ku haysanin ama qof caawiso oo san lahayn ilaahay ayuu talada saartay musiibadan ayaana ka dhacday maanta deegaanka ceelasha biyaha eeg sida u daateen jiingadahan si lamida sida u daateen waxyaabahan suuqi oo dhan iibka ahaa hadda dadku waxay marka la rajeenayaa inay dib u dhistaan tanina waxa u rajeenaa inay cimri qaadasho wanaagsan u noqoto qof kastana qofka kale xaqiisa uu iska ilaaliyo muuqaalka la wadaag saaxiibadaada mahadsanideen